Tuuliyada u sarreeya shirkadda Somcable ayaa shaaca ka qaaday inay abaalmarino kala duwan guddoonsiinayaan ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ciyaarihii gobolada Somaliland Cabdikariin Guji oo ka tirsanaa xulka gobolka Maroodi Jeex. ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay Cabdiraxiin Maxamed Cumar madaxa howlgelinta shirkadaasi waxaanu ka waramay shirkadooda iyo waliba qaranka howlaha ay u qabato. runtii waxa ii sharafa inaan madashan aanu Cabdikariin ku maamuusayno isaga iyo xulkii gobolka Maroodi Jeexba aan madaxda shirkadayda kale soo agaasintay aan kala soo qayb galo. waxaan anigu dhowr kalmadood ka oranayaa inaanay shirkadda soo ama Somcable ahayn wax maanta ugu ah inay garab gasho oo ay ag istaagto sportiska Somaliland ma aha shaygii ugu horeeyay ama dadaalkii ugu horeeyay ka geysato kana wuxuu ka mid noqday dadaaladii hore ay uga geysatay haddii ay noqoto tabinta ciyaaraha haddii ay noqoto dhiirigelinta iyo garabgalka sportiga guud ahaanba. ciyaarihii ugu dambeeyay gobolada runtii Ilaahay wuxuu noo suura galiyay inaanu 3 gobol oo waaweyn oo macna badan ku fadhiya aanu qaadano oo ay funaanadeeda magacu ku xirdan yahay ay ku ciyaaraan oo ay kamid ahaayeen gobolkan Maroodi Jeex. runtiina waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan 3 gobol ee magacayaga ku ciyaaray oo anshax wanaag kubad wanaag iyo maaragtay maamuusba kala tagay ciyaaraha gobolada. ciidun baa guuleysatay kubadda balse waxa lagu xasuusanayaa oo aan uga marxaati kacaya dhammaan ciidii ciyaaraha daawanaysan ay ka marxaati kacaysa cid kasta oo funaanada soo xidhnayd inay sharaf adaab iyo akhlaaq iyo ciyaar wanaagba kala tagan ciyaaraha. haddii aan yar dib ugu noqdo waxa jira ilaa laga soo bilaabo 2011 inay shirkadda Somcable ama soo ay ahayd shirkadda mar walba lafdhabarka oo tabinta ciyaaraha amaba lagu soo ciiro ee la soo moodo inay noqoto shirkadda gudbisa si habsamiya maadaama oo ay shirkaddan nasiib u heshay inay noqoto hormoodka tiknoolajiyadda ama internetka. madaxa xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda Somcable Cabdirasaaq Xasan Rakuub waxa uu isaguna halkaasi ka sheegay abaalmarinta shirkadoodu ay ugu tala gashay Cabdikariin Guji. halkan waxaanu kaga dhawaaqaynaa Cabdikariin marka koowaad inuu caawa laga bilaabo ka mid noqon doono shaqaalaha shirkadda iyo shirkadda Somcable caawa laga bilaabo. sidoo kale Cabdikariin sida ay noo sheegeen xulkii gobolka Maroodi Jeex Cabdikariin wuxuu wax ku waayay garanku xidhnaa ee sida aad warbaahinta maxay heeday ka wada maqlayseen Cabdikariin shirkadda ama Somcable caawa waxay u ballan qaadaysaa kuna dhawaaqaysaa in aroorta haddii alla idmo aanu ku wareejin doono gaadhi haariyara. sidoo kalena Cabdikariin caawa laga bilaabo uu ka mid yahay shaqaalaha shirkadda Somcable waxay garab taagneedeen sida la socoteen ama ogeydeen ciyaarihii gobolada Jamhuuriyadda Somaliland hadday tahay inay sponsor gareysay gobolada qaar kamid ah sida Awdal Gabiile iyo Maroodi Jeex Cabdikariin kabtankii ahaa. sidoo kale waxaanu qayb weyn ka qaadanay baahintii qaybtii labaad ee tartanka hadduu yahay tartankii basketka hadduu yahay tartankii kubadda cagta tartankii orodka marathonka. Somcable oo aanu dhowr jeer hore ka dhawaajiyay inay tahay saaxiibka dhalinyarada inay tahay shirkadda maxay heeday dhalinyarada. macalinka xulka kubadda cagta ee gobolka Maroodi Jeex ayaa si weyn ugu mahadnaqay shirkadda Somcable. markooda waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan MSG Group gaar ahaan soo gasho. waxaan kaloo iyaguna si gaar ah ugu mahadnaqayaa saaxiibka Cabdiraxiin iyo Cabdirasaaq oo runtii ah niman dhalinyaro oo shirkadda garwadeenka muddadii ay joogeenna gaarsiiyay horumar fiican oo saaxiib ka dhigay dadka majority-ga dhammaan waxa weeyaan 50% waxa dhalinyaradii ugu badnayd dalkana saaxiib ka dhigay Somcable. arrintaasna muuqataa waxaan iyagana mahad gaar u jeedinayaa ajiibidda ay ka ajiibeen ninka codsigiisii ahaa damba mawduucii aad ka warhayseen
ee ahaa inuu magaca dartii xuquuqdiisii ku waayey falilaahi alxamdu tiitu ka fiican buu caawa gacanta ugu jirta. ugu dambayntii halkaasi waxaa ka hadlay ciyaartooyga la abaalmariyey cabdikariin guji. hayduun inay ka jawaabaan su-aashii ahayd inaan anigu dee wax ku waayey garankaasoo aan ku xidhnaa su-aashaas ka jawaabteenna aad baad ugu mahadsantihiin siduu macallinkaygu sheegayba anigoo qudhaatay iyo meydaan hiilin dhammaan waxaa u hiiliseen bahweynta sboortska gaar ahaan kubadda cagta meel kastay ku sugan yihiinba waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanay inaan somkiibal ku soo biiro dee cabdiraxiin dhammaan mas-uuliyiinta aad baan ugu mahad celinayaa dhammaantood dee waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aad baad u mahadsantihiin kamaroodi jaxaan anoo ku hadlayaa dee afka taageerayaasha dhammaan meel kastay joogaanba waxaan uga mahad celinayaa somkiibal sidaa quruxda badan leh noo maamustay noo karaamaysay. Batri Koosar Maxamuud, Telefishinka Sahan, Hargeysa.